سران كدب مدريان يمروين وحا فرحت إياه إن المانتا كرسو قيب قلو كليرها كلا دوان أرضيبا جامعة بيسو مناسبات قريبشرينتا وحبرشada heerka koowaad waxaan hambaliyay bagaadin halka lagu soo gudbinayaa ardayda maanta qaran jabinaysa waxaan leeyahay hambaliyo waxaan aad ugu faraxsanahay guusha aad gaarteen waxaan idinla qaybsanaynaa farxadda iyo wanaagga waan idinku bagaadinaynaa waxaan idinka rajaynaynaa inaad halkaas ka sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada waayo waxbarashadu ma laha meel ay ku dhammaato waa wax socda inta qofku nool yahay haddiiba uu fursad u helayo waxaana ilaahay idinka rajaynaynaa inaad cilmiga aad barateen ku anfacdaan dalkiinna dadkiinna iyo diintiinnaba waxaan mahad celin ballaaran halkan uga soo jeedinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda BSU oo runtii dagaal iyo waqti ku bixiyay inay soo saaraan ardaydeena aqoonta xambaarsan oo lafdhabarta u ah guud ahaan horumarka dalka waxaan kale oo ku faraxsanahay inay ardaydeena maanta qalin jabinaysa ay qayb ka yihiin howlwadeennada golaha wakiilada ee aan odayga u ahay ee Puntland arrintaas oo qiimo gaar ah inoogu fadhida waana uga mahad celinaynaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda waxaan u mahad celinayaa oo kale dhammaan waalidiinta isku hawlay kuna dadaalay inay ubadkooda soo gaarsiiyaan guushan ballaaran ee aqooneed iyadoo aanay la'aantood inoo suurto gasheen arrintaasi waxaana wada ogsoonahay inay ugu dhabaradaygeen duruufo badan oo maanta dalkeenna ka jira waalidiintaasi waxaan leeyahay waalidiinta sharafta badan waxaad gudateen waajibaadkiinnii ilaahayna waxaan idinka baryaynaa inuu wanaag idinku bedelo anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan waxaan ku boorinayaa hay'adaha dawliga ah shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan ganacsatada Puntland inaynu dhalinyarada aqoonta leh u abuurno fursado shaqo si ay iyagana ugu noqoto dhiirigelin iyo taageero dalka iyo dadka iyo diintuna uga faa'iidaystaan aqoontooda ugu dambeyntii waxaan uga faa'iidaysanayaa munaasabadan ardayda laftigeeda inaan kula hadlo ardaydu baryahan dambe dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah waxbarashadii inaanay waxba bedelaynin oo ardaydii markay waxbarato ay fadhi ku dirrada iyo gidaarada la fadhiisanayaan reer hebel iyo qabiil hebel iyo waxyaabaha hoos aan loo baahnayn taa laftigeeda waan uga faa'iidaysanayaa waa in aqoontu ay wax beddeshaa aqoontu inay wax beddesho weeye waxa laydinka fadhiyaana waa wax beddel gabagabadii waxaan leeyahay ardayda qalin jabinaysa waxaan idiin soo gudbinayaa duco iyo hambaliyo waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar wanaagsan insha allahu hada billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Ciidin Cismaan